gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax oo mudooyinkii u dambeeyay safar ku joogay magaalada Burco ayaa saakay yirtii hore booqasho ku tagay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Ibraahim School oo kamid ah dugsiyada ugu faca weyn Soomaaliland. Abwaanka oo ay wehelinayeen wufuud safarka kula socotay iyo mas'uuliyiinta ku soo dhaweysay magaalada Burco ayaa waxa si ballaaran ugu qaabilay barxadda hore ee dugsigaasi maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga Sheekh Ibraahim. waxa halkaasi hadallo soo dhaweyn ka jeediyay maamulka dugsiga Cabdiraxmaan Axmed Cawad, gudoomiyaha ardayda Cali Saciid Maxamed, xildhibaan bidhi iyo musharax Maxamed Saleebaan. Abwaan Xasan Dhuxul Laab Saalax ayaa ardayda dugsiga Sheekh Ibraahim uga mahad celiyay sida ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen dugsigaasi. dhinaca kale abwaanka iyo wafdida uu hogaaminaya ayaa booqday jaamacadda magaalada Burco. gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleebaan Dirir ayaa abwaanka uga mahad celiyay booqashada mugale uu ku yimi jaamacadda. abwaanka ayaa isaguna ka dareen celiyay madasha maamuusan ee ay ardayda jaamacaddu ku soo dhaweeyeen. وفرح محمد فارح شبكة عالمية سمو وناق نيوز برعو.